bismillaahiraxmaaniraxiim. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee wadani t v daawadow, waa barnaamijkii aan ugu magacdaray soomaalida ogaadenya ee qurba joogta ah oo nagu magacdaray xaaje nimaan ogeyn xiribaha ayuu ka ridaa. barnaamijkan waa qeybtii labaad oo maanta oo jimcaha aan kusoo qaadanayno. qeybtii koowaad waxay inoo joogtay maamulkii bashiir sheekh cabdi iyo EPRDF oo soo gashay dalkii. haddaba waxaa markaasi iyadana soo gashay magaalada guday ururkii ONLF la dhihi jiray oo cusbaa oo uu hogaaminayay sheekh ibraahim oo ka mid ahaa aas-aasayaashii ururka ONLF 1984 oo ku aas-aaseen magaalada qatar. wuxuu sheekh ibraahim iyo kooxdiisii ONLF baa soo dhexgalay shacabkii reer ogaadenya ee magaalada guday. waxay dadkii dhexgeliyeen fikradda siyaasadeed ee ay doonayaan inay la beegsadaan ummadooda, iyagoo doonayo inay qalan iyo deganaan ay wax ku raadiyaan, diyaarna aan u ahayn inay dagaal galaan ama wax xorriyadoon oo dhaqdhaqaaqa, laakiin ay mar walbaba ixtiraami doonaan dastuurka cusub oo Etoobiya. waxaa markaa Etoobiya dastuurkeedii lagu soo qoray oo jabhadii ay laga codsaday kuna soo qoreen markaasi oo ay tabadarneed dowladda wayaanaha qodobkii 39 ee ah qowmiyad kasta in ay xorriyadeeda qaadan karto iyadoo kasoo cadsan karto baarlamaanka guud ee dowladda Etoobiya. ONLF oo tabaabushay iyo abaabul u gashay inay xisbi dadka soomaalida ogaadenya ay qalbigooda qabsato, dadkiina ay ku baartay dhiigoodii ololihii siyaasadeed ee ay ku doonaysay in ay xornimo ku qaadato si qalin oo cad, shacabkana ay ka dhaadhacsiisay, iyadoo dhammaan shacabka soomaalida ogaadenya ay noqdeen kuwa taageersan jabhadii juxa oo ka qayb qaadatay markaasi doorashadii cusbeed ee ka dhacday 1992 ee ismaamulkii kililkii shanaad lagu magacdarayay oo xarun u ahaa magaalada guday, waxayna ka noqdeen madaxweyne kaasi oo uu hogaaminayay xilligaasi maxamed cabdulaahi sacdi. waxaa markaasi dhacday in ay xisbigii ONLF ay doorashadaasi abaabulka sida dimuqraadiyadda ugu dhacday inay hambalyo xataa ka heleen maamulo sare oo kasoo qayb galay oo dalka maraykanka ka yimid, iyagoo xataa koongareeska maraykanka xilligaasi uu yiri bariga afrika soomaalidaas ogaadenya doorashada sida xorriyadda ay u dhacday weli afrika kamay dhicin, waxayna u noqon doontaa taariikh hoggaan siyaasadeed oo dhab ah oo ummadaasi muddada badani dhibaatada haysatay lagaga bixi karo. waxaa dhacday in dowladdii markaasi hogaaminay kililka shanaad ee hogaaminaysay Etoobiya, gaar ahaan xisbigii ee hogaaminaysay xisbiga ONLF madaxna uu ka ahaa maxamed cabdulaahi sacdi, inay baarlamaanka si buuxda abti ugu qaadeen in ay xoroobaan oy doonayaan xornimo xilli kasta oo Etoobiya u ogoshahayna ay diyaar u yihiin, iyagoo aan wax muddo ah oo shuruudo kale aysan ku dirin. waxay baarlamaankaas foodkiisa usoo gudbiyeen baarlamaanka federaalka ee Etoobiya. kadib markii laga baaraan degay, waxaa dadka Etoobiyaanka mari weyday in aanan marna dadkaasi ay go-ayn, maadaama ay jireen 11 shidaal oo gaasaska dabiiciga ah oo laga helay meel u dhow ama jeexdin oo u dhow in ka yar 30 kilomitir u jirto magaalada shilaabo. waxaa markaa dhacday in ay isweydiiyeen baarlamaanka Etoobiyana uu cunumi waayey, iyadoo markii Meles Zenawi uu si dhaqso ah oo 3 beri la yeeshay xisbigiisii talada hayay ee TPLF, gaar ahaan lagu eedeeyay Tigray kaliya in ay yihiin, ayaa waxay ka dhaleecoodeen oo ka wada xaajoodeen in ay arrintani ku adag tahay, maxaa la samayn karaa, see la yeeli karaa, iyadoo markaa TPLF Etoobiya inteeda kale ay ku dhulaacaynayso goosasadii ee goosatay Eritrea oo iyadana raacooyin fara badan u keenay ayaa haddana mar kale midani kusoo kordhay. waxaa markaa ururkii EPRDF TPLF ee xukuumadda hayay ee Meles Zenawi ay si dhaqsaa u galeen shir, waxayna isla afgarteen iyagoo cidna u sheegin
inay maanta ONLF qaban karaan oo afarta sheekha uu wata ay yaryihiin dadka kalena ay ka farabadan yihiin inta siyaasadan aan dadka aysan sii xoogaysanin ONLF ee hadda ay tabar yar tahay afarta qof ay tahayna aan ciribta marino waxaana aan shkililkana soo rarno oon kayna jogjogo arrintana aan kala tuurno iyagoo markaa hoosta qalinka ka xariiqday waxaa si dhaqso ah kusoo duulay oo lama filaan ah dabayaaqadii 1993 dhexdeedii Malla Zinaawi oo keligii ah oo masaakiin la socota khaas ah wuxuuna yimid meel Geelgo-an la yiraahdo guday galbeedkeeda ku taal oo webiga jiinkeeda oo loo yaqaan orogadaanaha ama qolyaha dhismaha ee wadooyinka kuwaasi oo guryo waaweyn ku lahaa oo koonaha magaalada ee webiga jiinkiisa deganaa waxayna shir la yeesheen dhammaan Soomaalida ogaadeen iyo jilib kasta oo ka mid ah isagoo albaabada u xidhay oo yiri maanta waxaan doonayaa hal cod in aan idinka helo oo ah in aan ila mid noqotaan on Ethiopia xukuno muddo dheer ah oo aan dhaqaale fara badan isiiyo oo aad ka baxdaan waxaa dhacday markaa Malla Zinaawi inaanan dheg loo dhigin oo dadka shacabka dhammaantood ay dheen anagoo xorriyad ayaan u baahanahay markuu jife iyo qof u weydiiyey uu arkay in ay ku dhacday shaabadii ONLF dadkana ay xorriyad mooyeen wax kale ay marin ayuu Malla Zinaawi albaabada iskugu soo xiray halkaas BBC-da ugu dhawaaqday oo tiri Malla Zinaawi oo caraysan oo wajigiisa ka muuqdo cara ayaa u cararay kasoo duulay goday wuxuu markii u ballan qaaday inuu yiri waxaa idin tusayaa Soomaalida ogaadeen oo minority ka ah waxba aan ahayn waa inuu ballan wuxuu markii qaaday olole kale oo siyaasadeed iyagoo markiina ololo Sheekh Ibrahim iyo mas'uuliyiintii ONLF iyagana ay tageen Geelgo-an meel ahayd oo ay ku tushanayeen iyagoo markaa aan diyaar u ahayn wax dagaal ah ama wax dil ah oo ay la galaan Ethiopia waxay markaa doonayeen wax kasta oo Ethiopia ka soo baxo oo wada hadal inay yeeleen iyagoo markaasi eegayay dhibaatada dadkaada iyo qaxootinimada iyo markaana aanan waxba qalbigooda ku jirin iyagoo ay isna markaa inay TPLF ay tabar daran tahay oo maanta diyaar u ahayn xataa inay dagaal qaado waxaa markiiba lagu soo weeraray magaalada Geelgo-aanka Malla Zinaawi isla markiiba wuu raray isagoo xilligaasi markaa uu hogaaminayay oo sacdi laga qaaday Xasan Jire uu noqday madaxweynihii kililka ayaa haddana si la kala oo afgambis ahaan ah waxaa dhacday inta siyaasadda kale iyadana dhinaca ka socota ay ahayd inay kusoo weerartay magaalada Ethiopia magaalada Wardheer magaalada guday magaalada Geelgo-an ciidamada TPLF oo rabtay inay qabtaan sheekha laakiinse markuu ka warhelay siyaasadda ayuu wadada dheer qaaday isagoo dhagax buursi mariyay Sheekh Ibrahim oo siyaasadda ka warqayay inay soo weerarayaan waa sirar khaas ahna helay dadka shacabkana ay u soo warbixinayeen ayaa markiiba wuxuu ku guuleystay isaga qudhigiisa inuu iskaga cararo waada xagga iyo dhagax buur wuxuu ogaaday qudhigeeda in dhagax buur wada laga hayo isweer isagoo markiiba wada yar oo qurunwada ka degta toga la yiraahdo ka baxay oo u ambabaxay xagga iyo Wardheer waxaana ka dhacay dagaalkii ugu xumaa oo ugu khasaaraha badnaa ee Ethiopia u geysato shacabka Soomaalida ogaadeen oo kan ah oo aan tusayo dagaalkii 1994 February 18 daawo ee Wardheer dhibaatada xasuuqa faraha badan iyo dadka aadka u fara badan ee ku laadeen oo Ethiopia u geysatay waxaa markaasi dagaalka Wardheer kadib uu ambabaxay ama uu cararay Sheekh Ibrahim in uu meel kasta oo dhufaysa ay galeen afartii ONLF-na ay doorka galeen marka waxaan shacabka weydiinayaa oo wali rabaa inay la socdaan gandarrada xadka intay la eg tahay lagu hayay ONLF oo aanan ilaa xilligani dadka shacabka ay isweydiinayeen maxaa kalifay moodayaan dadka aan u qorbojoogta Soomaalida ogaadeen aan u bixiyay in ay mar walbaba ugu soo xajaniman ogeyn xiribaha ayuu ka ridaa haddaba qolyahan Soomaalida ogaadeen ee qorbojoogta ah sida inay ula socdaan ayaan doonayaa waxaan rabaa markaa ONLF inay noqotay afar nin oo duur ku jirto meel ay degtana aan jirin oo garab rarata ah sheekada inta iyadoo inoogu eg waxaan rabaa inay isii weydiisaan markaasi ONLF tabartii UPRF TPLF oo ujeedadeeda ahayd haatan inay soo qabtaan ONLF oo afar qaban weyday ONLF oo maanta xoogeysatay
oo Ethiopia cariiri gelisay qalqalna gelisay ciidamo dhisan iyo military ah santalaadiyo telefoonno horumaro badanna gaadhay ma kula tahay inay mabdaceeda ka leexanayso ugu leexanayso wayaanaha ay haatan ka xoog badan yihiin ee gorgortanka kula jiro? sheekadan qaybta saddexaad ayaan idin dhammaystiri doonaa. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.